5 digniin oo keliyahaagu xilli hore kuu sheegaan haddii cudur ku dhaco. Keliyuhu waa xubin muhiim ah taas oo jirka ka saarta waxyaabaha uusan u baahnayn, sidoo oo kalena dib ugu celisa jirka waxyaabaha nafaqada u leh. Mararka qaar waxaa jirka ka soo muuqda calaamado lagu ogaan karo digniinta keliyuhu bixiyaan xilli hore haddii xanuun soo wajaho. Marka waxaa muhiim ah in aad ka hortagto inta uusan faafin xanuunkaas, sababtoo ah keliyuhu ka hortag ay leeyihiin, laakiin haddii ay fariistaan daweyn ma leh. Isbedelada kaadida ku yimaada, sida in kaadidu aad u badato, inay aad u yaraato, ama in aad suuliga ku noqnoqoto oo wax yar kadib aad dareento kaadi sidaana aad ugu noqnoqoto suuliga. In kaadidaada kalarkeedu isbedelo oo ay gaduud noqoto, taas oo ku tusinaysa dhiig la socda kaadidaada, ama in urta kaadidaadu isbedesho. 2. Bararka lugaha ee duusma. Marka culayska caabuqa uu ku bato keliyaha isla markaana uu hoos u dhaco xaddigii filtreynta ee keliyaha, waxaa dhacda in keliyuhu jirka dib ugu celiyaan waxyaabo uusan jirku u baahnayn, sida oo kalena ay banaanka u saaraan waxyaabo jirka faa'iido u leh sida borotiinada. Marka waxaa dhacda shaqadii borotiinadu ka qaban jireen jirka ee ahaa xadeynta iyo isu dheelitirka cadaadiska qulqulka dareeraha ee unugyada iyo banaankiisa inay hoos u dhacdo, markaana biyaha jirka ay ku aruuraan agagaarka maqaarka, sidaana uu ku yimaado barar haddii la riixo duusma. 3. Dhiigkarka. Sida aan horey usoo sheegnay, keliyuhu waa xubin qaab filter ah u shaqeysa. Shaqadaana si ay u qabato waxay u baahan tahay dhiig fara badan oo soo gaara tiftaafyada shaqada qabta ee keliyaha. Marka dhiigkarku waxa uu hoos u dhigaa dhiiggii wadnaha ka imaanayay ee keliyaha soo gaarayay. Keliyuhuna waxa ay helaan dhiigga wadnaha ka soo baxa 25%. Marka si keliyuhu u helaan dhiig ku filan, waxa ay soo nuugaan oo dib ugu soo celiyaan cusbadii jirka si cadaadiska dhiigga loo kordhiyo, sidaana waxa ku sii bata cadaadiska dhiigga, markaana waxa sii yaraada dhiiggii, taas oo ugu dambeyn sababta in keliyuhu shaqada gabaan. Xaaladan ka hortag ayay leedahay. 4. Dhabar xanuun. Marka uu caabuqu ka soo gudbo xubnaha taranka ee hoose dabeeto uu soo gaaro keliyaha, caabuqu sida caadiga ah wuxuu yareyn doonaa shaqada keliyaha. Marka waxaa yaraan doona kaadida, waxaa jirka ku badan doona wasaqda, waxaana imaan doona dhabar xanuun iyo xanuun miskaha ah. Dadka qaar waxaa soo raaca qandho, matag iyo kaadida oo kusoo noqnoqota. 5. Madax xanuunka, daalka iyo tabardarida. Unugyada cascas ee dhiigga waxay qaadaan oksijiinka si ay tabar iyo neef fiican u gaarsiiyaan unugyada jirka ee kala duwan. Haddii ay yaraadaan unugyada cascas ee dhiigga, waxaad dareemi doontaa caajis iyo cabur. Waxaa jira hormoon lagu magacaabo EPO ama erythropoietin, kaas oo laga soo saaro keliyaha isla markaana sameeya unugyada cascas ee dhiigga. Haddii kelidu shaqayn weyso, waxaa hoos u dhacda soo saarista hormoonka iyo sameynta unugyada cascas. Haddii aad dareento xaaladan, waa inaad heshaa takhtar isla markaana aad uga warbixisaa xaaladaada.